wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjire Nicholas Kay iyo Danjire Midowga Afrika iyo Amisom ee Soomaaliya Maman Sadiqu ayaa ka qayb galay shir qaramada midoobay ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya. dhanka dawladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa waxaa aga qayb galay Cawaale Kulane oo ah danjire ku-xigeenka ergada joogtada ah ee Soomaaliya ee ku sugan dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada New York. Cawaale Kulane ayaa qadka taleefanka aan kula xiriirnay warbixin naga siiyay shirkaasi waxyaalaha looga hadlayay. Cawaale, marka hore waxaad nooga warantaa shirkan qaramada midoobay ujeedkiisu muxuu ahaa, maxaase looga hadlayay? shirkan waa shir qaramada midoobay oo warbixin uga dhageysato ergeyga gaarka ee xogayaha joogtada mudane Nicholas Kay uu 3 bilood mar warbixin ka siiyo 9 maalmood wixii qabsoomay. halkaas oo isla markaas warbixintaas looga faa'iideystay inay Amisom ayagoo warbixin ka bixiso si loo wargeliyo qaramada midoobay golahooda ammaanka oo arrimaha Soomaaliya aad waxaa jooga. isla markaas intana dowladda Soomaaliya ay ka dhiibatay ayadana aragtida wixii ku aadanaa wixii qabsoomay 9 maalmood Soomaaliya qabsoomay iyo wixii hore loogu dhaqaaqi karay iyo taariikhdaasi intaba. waan gartay wakiilka qaramada midoobay ee u fadhiya wadanka Soomaaliya Mr Nicholas Kay maadaama uu yahay nin wakiil uga ah qaramada midoobay, marka warbixinta uu ka siiyay bal maxaad inooga sheegi kartaa? warbixinta wuxuu ka hadlay dhowr arrimood oo isbedeladii ka dhacay Soomaaliya xagga siyaasadda bilihii la soo dhaafay. maxaa la dhahaa rajada iyo adigu walwal wuxuu ka qabo iyo aragtida qaramada waxay tahay horumarka ee Soomaaliya samaysay. wuu qiray in Soomaaliya horumar badan ay gaartay haddana horumarkii ku socoto, laakiin inaysan gaabin uu rajaynayo howlaha dhiman muddo qarameed oo baarlamaanka dhiman iyo golaha gudiyada baarlamaanka dhiman in la aasaaso. una tixgeliyay horumarkii xagga ammaanka laga sameeyay iyo xagga siyaasadda intaba, laakiin runtii wuu taabtay inay maaragtay baarlamaanka iyo siyaasadda la isku dhaafi layahay inay caqabado muujin karto, laakiin uu rajaynayo iyadana si toos ah looga baxo. laakiin wuxuu muujiyay maaragtay hididiilo iyo rajo fiican inay leedahay Soomaaliya inay ku hiigsan karto barnaamijkii aragtida Vision 2016 ee hiigsiga 2016 Soomaaliya, taasoo uu rajaynayo inay Soomaalida ku wada shaqeeyaan. sidoo kale wuxuu xusay ballamihii wada shaqeyntii dowladda Soomaaliya ku wada galeen Copenhagen horumaradii laga gaaray maaragtay siyaasadda gudaha iyo wax badan ayuu taabtay oo warbixintiisa qayb ka mid ayuu ku taabtay qaramada midoobay markuu ka hadlay. waan gartay dhanka kale madaxa Amisom waad noo sheegtay inuu halka asaguna ku sugnaa, ma ka hadlay asaguna dhanka ammaanka ciidanka haatan ku sugan Soomaaliya maadaama asagu uu yahay madaxa Amisom? wuu ka hadlay, wuxuu aad u faahfaahiyay wada shaqeynta ka dhexeysa Amisom iyo qaramada midoobay iyo sida mid xoog leh ku tilmaamo shaqeynta ka dhexeysa Amisom iyo ciidamada Soomaaliya sida wada shaqeeyaan ay u guuleysteen maaragtay tallaabooyinkii ka qaadeen goboladii laga xoreeyay qolada oo maaragtay nabad dararka ah. isla markaas xitaa wuxuu muujiyay in ay horumar la sameeyay, laakiin wuxuu sidoo kale asagana ku dhiirigeliyay in qaramada dowladda Soomaaliya ay ku taageeraan maaragtay inay meelaha nabadda laga howlgeliyo maaragtay wixii siyaasadda wixii dowladda laga rabay ama services waxqabadkii dowladda looga rabay oo ay ku tacaawin lahayd dadka shacabka Soomaaliyeed. isla markaas wuxuu taabtay waxyaalaha howlaha Amisom diyaar u tahay inay ka qabato hadda inta ka dhiman maxaa la dhahaa sanadkaanito iyo horumarka la rajeynayo sida nabadii hadda lagu guuleystay loo hayn lahaa. runtii gelin iyo wacyigelin ayay u dhammayd maaragtay hadaladiisa. Time must be allowed for change to take root and due to process followed by all agents of change. Accompanying this political and governance process, reconciliation activities are taking place, ranging from social,
through to civil dialogues and political reconciliation activities at the district and national level. Reconciliation conferences have been initiated in Kismayo and Baydoa, and there is commitment to holding one such reconciliations. waa gartay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa danjire cawaale kulane oo aanu ka wareysanaynay shirkii maanta qaramada midoobay uga hadlaysay arrimaha Soomaaliya. Liibaan Xuseen, telefishinka qaranka Soomaaliya, Minneapolis.